نبض كودا ووطني وحيا النعم ووطني وحبذا الدورة ووطني وطنك دسيا ووطني بشر وطن ووطني xisbiga mucaaradka ee Soomaaliland ee waddan ee maanta u lahaa ololaha doorashada madaxtooyada Soomaaliland ayaa xuduudiisii ugu ballaarnayd ee taageero waxa uu ku soo bandhigay gobolada iyo degmooyinka dalka iyadoo kumanaan taageerayaal oo ku dhaqan magaalada caasimadda ay Hargeysa isugu soo baxeen fagaaraha beerta xorriyadda ee bartamaha magaalada Hargeysa inkastoo taageerayaasha xisbiga waddan ay maanta qaadi waday barxadaasi balse mas'uuliyiin kala duwan oo qoobtaasi kala hadlay taageerayaasha kumanaanka kun ee maanta isugu soo baxay fagaaraha beerta xorriyadda ayaa iyagu waxay u tilmaameen الله doorashada sida quruxda badan ay uga soo qayb gasheen waa arkaysaa maanta inay dadkeedu u helayeen inay isbedel helaan 200 kun oo qof baan la hadlaynaa telefoon kala hadlaynaa waxa weeye barnaamijkii u horeeyay ee taariikhda doorashooyinka dimuqraadiyadda Soomaaliland oo xisbi si toos ah taageerayaasha qof ula hadlo cagta lagu tagi doonaa hadii kulmiye aanu la socon tiknoolajiyada aad baan uga xumahay waxa kale oo Xasan Gaafadhi uu ku gafay komishanka doorashooyinka qaran marka uu leeyahay waxa la bixiyay xogtii codbixiyaha beenway arrinka waxba kama jiraan xisbigan wuxuu idin wadaa murashax diblomaasiyadda muddo dheer ku soo jiray oo siyaasadda dalka gudaha iyo dibadda ka soo shaqeeyay waxaan idin wadaa inaan marneer arag aan ilmaha yar iyo qofka weyn midaan ku oranay laakiin wixii go'aane saxa diisa u qaata mar hore ay ku shaqeeyaan xisbiga wadayna عندنا شعب كبير في حمايتنا وإذا يدورسان مدحوينان وكوهدوني هاي ومقفلها waxay doonina maanta inaan ismuujino in badan baynu ciil iyo dhibaato aynu ku soo jirnay kulmiye iyo waxa uu dabada ku wato waxaan leeyahay badalo dhinaca kale isaguna waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyahana musharaxa jagada madaxweynaha ee xisbiga mucaaradka ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Abdullaahi Ciro oo halkaasi khudbad dheer oo qulubta shacabka Soomaaliland gaar ahaan taageerayaasha xisbiga wadani taabatay halkaasi ka soo jeediyay isaguna gudoomiyuhu eedeymo kala duwan u jeediyay mas'uuliyiinta xisbiga talada dalka haya ee kulmiye shacabka Soomaaliland ugu baaqay inay taageeraan isbedelka uu doonayo xisbigu inuu ku sameeyo haddii uu ka guuleysto talada doorashada madaxtooyada ee soo socota weynaha Soomaaliland aqlabiyada bulshooyinka isbedel doonka ee maanta dalka oo dhan meel kasta banaanada u taagan muujinta dareenkooda waa maalintii saddexaad ee ololaha doorashooyinka madaxtinimada dalka maanta oo isniina waxay ka u tahay barnaamijyada badbaadada qaranka waxay ka u tahay shacabka rajadoonka waxay ka u tahay maalmaha inooga hadhay dib u soo noolaynta diidilada dalka iyo dadka walaalayaal maanta ma ahayn in kulmiye codadii soo doonto waxay ahayd inuu wejiga mara ku duubto oo khajirada luunto dhibaatooyinka waaweyn ee ina haysta oo isugu jira kuwa kulmiye abuuray iyo kuwa hore u jiray been waa la dhoobdhoobi karaa warbaahinta dadka waa lagu dhagabarjayn karaa oo siyaad barre Hargeysa iyo Burco oo haawanaya ayuu lahaa ciyaarihii gobolada ka socda walaalayaal dhibaatooyinka xanuunka badan ee kulmiyeyna dhaxalsiiyey waxaa ka mid ah qiimo beelka lacagta waddanka iyo koronka maciishada dadka inta awoodi karaysa nolol maalmeedka way sii yaraanaysaa maalinba maalinta ka dambaysa waxaan idin xasuusinayaa maanta iyo aafada sicir bararka ee dhaqaalayahanada kulmiye u taagla yihiin inaanu hogaamiye militari ahayna taag iyo tabar midna u haynin inteena maanta ma aha doorasho saddex qof oo la kala dooranayo laakiin waa doorasho la kala dooranayo isbedel iyo waddanku ku sii jiro xaaladda uu ku jiro Cabdiraxmaan Abdullaahi Fantastic Saab TV Hargeysa ololaha aqalka doorashada madaxtooyada Soomaaliland ayaa galay maalintii saddexaad waxaana lahaa xisbiga isbedel doonka ee wadani kumanaan ka mid ah taageerayaasha ku abtirsaday xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa isugu soo baxay fagaaraha khayriyeed ee magaalada Burco iyo waliba jidadka halbowlaha waa magaalada waxaana taageerayaasha ruuxayeen astaanta xisbigaasi waxaana taageerayaasha xisbiga wadani gobolka Togdheer kala soo qayb galay maanta mas'uuliyiin ka tirsan hoggaanka sare ee xisbigaasi
waxaana halkaasi kala hadlay gudoomiyaha kaambeynka xisbiga wadani ee gobolka togdheer ibraahim jirdi gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka togdheer maxamuud xasan salebaan doob iyo mas'uuliyiin iyo siyaasiyiin xilal kala duwan ka haya xisbiga wadani ayaa taageerayaasha kelmado bogaadon u badnaa halkaas oo ka soo jeediyey xisbiga wadani wuxuu xisbiyada kale kaga duwan yahay waa xisbigii isbedel doonka waa xisbigii musuq maasuq diidka waa xisbigii horumarka dalkeennu maanta halku maraya waa ogtihiin siyaasadda arrimaha dibadda halku ka maraya waa ogtihiin dhaqaalaha halku ka maraya waa ogtihiin sow diyaaru ma nihin intaaba inaynu beddello maanta gobolkii togdheer oo midnimadiisii muujiyey una quuskooyey nimankii gobolka kala qaybinayey qabyaaladda kula dhex jiray lahaa beelayey sheegaan weeye ishoodii baa wax la tusay boqolkiiba 80 waddani baa burcale ha ku habsaamina kulmiyow haddaad been sheegi jirteen haddaad odhan jirteen bariga burca waddani waxba uma yaallo indhihii fayaw iyo caqligii saliimaha uu arkaa waxaan leeyahay isa soo dhiibo cafis yaanu idiin fidinno waxaan idin leeyahay ilaahay haynagu asturo mowqifkii iyo hadafkaynu doonanno maanta ayaa muujiseen cududii xusbiga iyo isbeddelkii shacabka guushii xisbiga waddani hore uga gaadhay gobolka togdheer ayaa maanta si layfa u muujiseen maanta waxa weeyaan guushii ayaynu gacanta ku dhignay waxay maanta ka dhigan tahay maalintii 60kaynu calan ka qaadannay kulmaya badaluu guuliga gobonnimo sidaasaynu isugu xidhaanaynaa guushu gacmiyaennay ku jirtaa madaxweynaha soomaalilan waxaan ka codsanaya madaxweyne wadda wanaagsan baad noo samaysay baaqidana wadda waxaa buuxin doona oo inta tale dhammayn doona waddani baa dhammayn doona burco waa burco gobolka togdheer waa midaysan yahay ninkii wax kale ka sheegaya waad aragtaa waxaa iyaguna halkaasi kala hadlay taageerayaashii baaxadda weynaa maxamed biixi yoonis muniir axmed cigaal bashiir cabdi xariir iyo maxamed cismaan foodal oo ka tirsan hoggaanka sare ee xisbiga waddani ayaa taageerayaasha burco uga mahad celiyey sida baaxadda leh u muujiyey cududa taageero ay la garab taageen xisbiga waddani madaxweynaha cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi waxaynu u ducaynaa hoggaamiyihii cadaalad keena dadka aan qaybin inuu noqdo ayaa ka dhigay amiidaha xisbiga mustaqbalku waa waddani wuxuu idiin sameeyey barnaamijkii mustaqbalkiinna af khaliya iyo huuhaa maaha igu celina maaha kii uu idinku barwaaqayn lahaa ayuu idinla gelayaa halkaa maxamuud xaashi baa shay ka hadlayey 10 milyan abaaraha loo ururiyey meeluu kaga warramo maxamuud xaashi idiin buu sheegin ummadda reer burco umuu sheegin saddexaad haddaynu magaalada uga baxno dadkeennii caydhoobay waa walaalayaal daadsan xagguu mariyey maxamuud xaashi 10 milyan taariikhdaa la xisaabtami doonta ragga gaawaha soo culanaya waa kuwa muse waxaa leeyahay igu ballamidii way dhammaatay waxaan ka baryayaa tacabkiinna iyo niyaddiinna iyo midnimadiinnu ilaahay waxaan ka baryayaa inuu waddani ka jawaabo oo aad ku guulaysataan burco waa mid burco bal iyo galbeed ma kala laha soo waddani dooran maysaan keebaa dantiinna wada waynu ka dimaaqannaa waynu iska ridannaa culayska kulmiye reer burco iyo somalilan ala way tashadeen guushii waa waddani in dib laydinku xidho qoobqoob ma oggolin in laydinkala qaybiyo ma oggolin kulmiye wuxuu ku guulaystay inuu maanta murashax keenayna kala qaybiya waxaannu idin leenaha walaalayaal waxaannu idin wadnaa murashax guul keenay oo idin midaynaya oo aan idinkala firdhinayn oo isku kiin ururinaya haddana aynu ku wareejiyey waryahayga magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal mustafa carraale iyo sidii xisbiga waddani ugu soo bandhigay taageerayaashiisa